matanaweeyo meel bay ka wada timi Somali waamid waawliyo mayra matanaweeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi makamaranta madaxow majaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta idigay bidixi makamaranta madaxow majaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada covid-19 oo kale aad ka dhagaysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha subax wanaagsan dhegaystayaal waa 22 bisha afaraad sanadka 2020 barnaamijka waxaynu alaab uga hadalnaa waxyaabihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus iyo sidoo kale sida lagu xakameyn karo iyadoo dawladda Soomaaliya ay wado dadaalo kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo qodobka maanta aynu uga hadlayno waxa uu yahay waxa sii kordhaya tirada dadka uu soo ridana xanuunka covid-19 wali waxa muuqata in bulshadu aysan ogeyn ama la socon khatarta xanuunkan maxay tahay xalka ugu weyn ee ugu dambeeya ee bulshada Soomaaliyeed lagu badbaadin karo isla markaana lagu xakameyn karo xanuunkan barnaamijka waxa ay gala qayb galaya Dr. Ibrahim Abduqaadir Xaaji oo ah isduwaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Jowhar Dr. Xuseen Cabdicasiis Abduqaadir oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Soomaaliyeed Siriyanes ahna dhakhtarka daweynta guud ee qaliimada oo isna ku sugan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Cabdirashiid Nuur Ibrahim oo ka tirsan warbaahinta qaranka isla markaana nala falanqeyn doona waxyaabihii ugu dambeeyay ee xanuunka coronavirus iyo sidoo kale saameynta dhaqaale oo caalamka ku yeeshay waxaan marka hore u mahadcelinayaa waqtiga ay noo soo horeen saaxiibada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta barnaamijka ay nagala qayb galayaan marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha ama isduwaha wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle Dr. Ibrahim Abduqaadir Xaaji oo ku sugan magaalada Jowhar Dr. soo dhow marka hore waa salaamahayaa dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada igala qayb galaya programkan isaga waxaan rabaa xoogaa inaan ku soxo waxaan ahay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe haddii aan hadalkii hore usii galo horta niyahow cudurkan waa dareemi karnaa xaaladda uu adduunka uu geliyey isagoo waddankeenana aan ognahay inuu soo gaaray tiraduna ay sii kordhayso xalka iyo xakameyntiisa waa yacni wax aada hadda hawsheeda loo wado runtiina waxaan filahayaa ma aha cudur safmar ah oo noocaan ah inuu hadda ka dhaco hadda kow ma aha 1947 waad ogtihiin oo waxaa ka dhacay waddanka waa cudurka la kolera oo aad iyo aad dad badan u laayay nasiib wanaag laakiin waqtigaas waddanka waxaa ka jiray system waddankoo dhan wada gaarsiisan oo yani networka systemka dawliga ahaa wuxuu u shaqaynayay waddanka gees ilaa gees laakiin hadda waan ognahay xaaladda aan ku sugannahay cudurkan waxaa xalkiisa uu yahay annagu dad islaam aan nahay marka ugu horeysa inaan diinteenna iyo caqiidadeenna iyo rabbigeena uskano oo ilaahay barino kadibna dadka aqoon-yahanada oo waaye aragga u ah xaaladaha degdega oo cudurrada faafa ay arrintan aad uga hawlgalaan waaba ka hawlgaleen la badiyo marka doctor iyadoo khatartii weli ay jirto haddana bulshadu kuma baraarugsana
in tilmaamihii la siiyey ay qaataan oo fogaansho ay isu jiraan oo kale waxaad arkaysaa dadku iyagoo isku soo dhawaanaya goobaha inta badan la isugu imaado macnaha isugu imaanaya arrintaas ka hirshabeel ahaan adiga isku duwihii wasaaradda caafimaadka gobolka shabeellada dhexe ayaa tahay sidee uga shaqayseen wallaahi walaal dadaalku ma yara laakiin sida aad og tahayba dadkeenu aad bay uga madax adag yihiin dhanka wacyigelinta markii aqoon-yahanadu ay yani soo geliyaan meediyaha ama baraarujinta caafimaadka khatarta cudurkan uu leeyahay iyo dad qaato waa jiraan laakiin aad bay uga madax adag yihiin waayo waad og tahay suuqyadiibaa sidii u furan oo dadkii isugu imaanayaan waad og tahay oo iyadoo malcaamadihii la xoro haddana waxaa arkaysaa malcaamado weli furan waxaad moodaysaa yani dareemaysaa madax adeeg zaa'id ah oo dadku ay aad ugu dhiiran yihiin khatarta macnaha loo sheegahayo aad bay ugu dhiiran yihiin baad moodaa inaynan badanaynayn balse haddana dadaalku waa socdaa oo dhanka wacyigelinta aad baad umahadsantaan kuu soo laabanaya waxaan siinayaa doctor xuseen cabdicasiis cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud isbitaalka soomaali siyaalanees magaalada muqdisho ayuu ku sugan yahay waxaana uu yahay dhakhtarka daweynta guud ee qaliimada doctor soo dhow dhankiina wacyigelinta iyo sidoo kale haddii aad qodobka la socoto aad baad umahadsan tahay baadreeda muqdisho sida wanaagsan wacyigelinta bulshada mar walba aad u gaarsiisaan runtii wacyiga bulshadu ma yaro dadaal badan baad geliseen waana isaga mahad celinayaa bacda martida barnaamijka sidoo kale ayadana waa salaamayaa dr ibrahim iyo sayidka kalaba waxaan runtii bulshada wacyigeeda weli waxaad umalaysaa inuusan aada u dhisnayn dadkana dee soomaalida waa inkastoo itaabsi ilaa cudurka uu dad badan uu laayo inkastoo hadda dadka la ildaran ay tiradooda ay 300 ku dhow oo 200 iyo weliba ay marayso sida ay wasaaraddu shaacisayba weli waxaad umalaysaa in dadkii wacyigiisan aada u gaarin annaga ka Soomaali Siriyaan ahaan wacyigelin badan baan sameynaa shaqaale isbitaalka oo runtii maalin walba aan fariin u dhiibno oo aan runtii social media aad baa loo isticmaalaa social media aan u marsiino waayo dadkiiba la takooda inaan isu keenno ama noo suura geli karin ba anagoo kahortagii iyo ilaalinayno macnaha social distancing marka arrintaas maxaa keeni karaa is leedahay in bulshadu weli aysan ku baraarugsanayn haddana xanuunka ay la socdaan sida caalamka uu dhibaataynayo soomaaliyana la leeyahay dadka uu soo ridanayo way sii kordhayaan oo wasaaradda caafimaadku warbixinada ay siinayso bulshadu lama socdaan aada umahadsan tahay soomaalidu waxyaabaha keeni karaa inay wacyigeeda uu weli uusan qaadanin waxaa kamid waa dad aada u madax adag run ahaantii madax adeegaas ayaa wuxuu keenayaa inay wax walba ay dhagax ka furaystaan ilaa dad badan oo aan ay ku waayaan talana ay faraha ka baxdo marka waxaan dhihi lahay taas ha laga waantoogo tala waxaa la tiradaa soomaalidu adaa ku nool maana ayada kuguma noolo oo mahmaa macno badan leh kana tarjumayso in mar walba ay digniin gaara samaynayso howl taagan hadda tan oo kale ah marka wacyiga bulshadu wuxuu la xiriiraa fahamka bulshada waan kuu soo laabanaya doctor cabdirashiid nuur ibraahim oo stuudio igula sugan ayaa isna warbixinadii ugu dambeeyey noo dulmari doona oo inala falanqayn doona waxyaabihii ugu dambeeya caalamka warbaahinta caalamka ay ka qoreen iyo xanuunka coronavirus iyo sidoo kale saameynta dhaqaale ee caalamka uu ku yeeshay xanuunkan dowladda iskuduwaha caafimaadka ee wasaaradda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo doctorkana Soomaali Siriyaas naga soo galaya qadka teleefanka doodana kaga jiro wararkii ugu dambeeyay salaanta markaan kasoo gudbo fadhiga guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ee qaramada midoobay waxaa lagu go-aamiyey 193 dal in loo helo cudurkan COVID-19 ama 19 in dhibaato xoogan uu ku hayo dunida inteeda kale saameyn adagna uu ku hayo dhinacyada kala duwan ee adduunyada loona baahan yahay in la helo tallaal in la helo tallaal
iyo dawooyin looga hortago cudurkaasi waxaana kulankaasi si kale looga hadlaya arrimaha caafimaadka in hay-adaha caafimaadka ay dardargeliyaan howlaha dhinaca caafimaadka iyo sidii loo dardargelin lahaa dhinacyada arrimahan sida looga hortagi lahaa dunida dhibaato ballaaran uu ku hayo dalka maraykanka madaxweynaha wadankaasi maraykanka Donald J Trump bartiisa Twitterka qoraal oo soo dhigay wuxuu yiri cudurkan halista ah ee COVID-19 awgiis in dadka soo galootiga ah in la hakiyo sabab la xiriira cudurkaasi COVID-19 oo maraykanka dalalka sida weyn oo saameynta ugu leeyahay uu ka mid yahay sida looga hortagi lahaa madaxweynaha wadanka maraykankana waxa uu cudurkaasi ku tilmaamay inuu yahay balaayo qarsoon oo aan la arki karin sidoo bartiisa Twitterka ku soo qoray oona dhibaato ku haya dadka reer Mareykan iyo adduunyada dhan in lala dagaalamo waa tahay in qodobka ugu dambeeya Hindiyan ku soo koobi doona dawladda Hindiya saaka waxa ay furtay ama ay xakameeyeen si ay qafiifisay bandoogi saarnaa in magaalooyinka waaweyn Bombay iyo dalkaasi Hindiya ganacsiga in si tartiib loo ganacsan karo ganacsigiina way furtay dalkaasi Hindiyana waxa saakay dadku lagu arkayaa xiliyadan suuqyada iyo ganacsiga inay furan yihiin oo wararkii ugu dambeeyay warbaahinta adduunyadu ay qoreen dhinaca kiisaska iyo xaaladaha cudurkanna waxa uu yahay mid sii baahayo dunida wadamo badanna ay la sii daalaa-dhacayaan agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Adam Tedros waxa uu sheegay in Afrika xaaladeedu ay tahay mid aad iyo aad cudurkan u saameyn doono loo baahan yahay taageero badan in la siiyo dhinacyo kala duwan laga taageero waxa uuna sheegay in xaaladda xilligan kiisaska Afrika kasoo yeerayo inuu yahay mid sii ballaaran oo dhinacyo kala duwan uu saameynayo wadamada qaarkoodna uu sii kordhayo ama Ingiriis uu sameynayo cudurkaasi COVID-19 dhibaatada ku hayo dhinaca kale waxaa la leeyahay xanuunkan waxa uu geystay dhaqaale waa dhibaato dhaqaale oo caalamka soo food saartay oo kale toddobaadkii hore oo kale wadamada ugu waaweyn caalamka ee saliidda soo saara oo kale iyo shidaalka waxaa hoos loo dhigay qiimihii shidaalka oo kale taas naftirkeeda meesha ay ku jirtaa la leeyahay marka maxay warbaahintu ilaa haatan ka qortay mukhtaar markaan fiirino dhinaca caafimaadka cudurkan horta dhibaato weyn inuu dunidu ku hayo safmarka ah waxaa xusid mudan saaka in saliidda ceerinka ah ama dalkaasi Mareykanka inaan la iibsanaynin waa sheekooyinka saaka ugu waaweyn ee warbaahinta caalamka qorayaan dalka Shiinaha kale lacagaha oo lumiyay dhaqaale ahaan waxa warbaahintu ama marka la saadaalay dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeey inay tahay 5 billion in wax ku dhow marka waa saameynta dhaqaale uu leeyahay waa muuqataa laakiin saameyntaas dhaqaalaha marka aan daan kala qaadno waxaa jira figures ama numbers waxaa hadda ku howlan dadka khubarada dhaqaalaha ah dunida waxaa la fiiriyaa institutiono ama hay-ado waaweyn ayaa soo saaro numberska xadka dhaqaalaha uu saameynta uu ku yeesho ama impactiga meelaha oo sida weyn u saameeyey meelaha ka badbaaday laakiin si guud marka loo fiiriyo oo dunidoo dhan marka la fiiriyo inuu saameyn dhaqaale weyn geystay COVID-19 waa muuqataa saameyntaas see looga soo kaban doonaa maxay tahay saameynta meelaha badan uu gaarsiiyey waa mid ku imaan doonto cilmi baaris iyo dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya ay soo bandhigi doonaan marka hadda waxaa la ogyahay in dhaqaalaha dunida dhan uu saameyn adag uu ku leeyahay oo saameeyey isu socodkii gaadiidkii diyaaradaha ganacsigii badii oo gaadiidkii mari lahaa oo maraakiibtii qaarkood wadamada qaarkood waxay la dagaalamayaan in raashin yari uusan dhicin waxyaabaha dadka aas-aasigu ah primariga siday u heli lahaayeen marka waxyaabahaasoo idil iyo wadan walba uu la tacaalaya dalalka hadda xayiraada qafiifinaya dalal way kordhinayaan UK oo kale waxyaabaha warbaahinteeda qoraysa waxaa ka mid ah in lasii kordhin doono bandowga la filaya bandowga in 2 isbuuc lagu sii dari doono sida hadda saameynta uu ku leeyahay marka la fiiriyo Britain marka wadamada adduunyada waxyaabahaas waaweyn ay qorayaan aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayuu kaasi ahaa oo noo soo koobayay warbixinadii ugu dambeeyay ee warbaahinta caalamka ay ka qoreen xanuunka coronavirus iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale oo geystay waxaan aadayaa dhinaca maamulka Hirshabelle ee isuduwaha ayaan markaan u wareegaya Dr. Ibrahim Cabduqaadir Xaaji waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ah haddii aad qadka ku jirto
waxaan ognahay in mas-uul ka tirsan maamulka hirshabeelle oo u dhintay xanuunka coronavirus maamulkuna uu wado dadaaladii ugu dambeeyey ee looga hortooga xanuunkaasi maxaa tallaabo ilaa ay hadda aad qaadeen weliga waa mahadsan yahay aada buu noogu soo koobay gaar ahaan xagga dhaqaalaha waad og tahay oo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle markaana wasiiraha ayaa u dhintay cudurkan sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka federaalka isbitaalka martiini annaga mas-uulka dhimashadiisa iyo kadibba waxaan wadnay yani wacyigelin baahsan oo aan dadka ka wacyigelinayno cudurkan iyo khatartiisa wayna socotaa laakiin caqabada meesha taallaa waxay tahay sida akhyaarta ay ku wada aqoon-yahanadu ay wada xuseenba dadkeenu waa dad xaggaas aada uga madax adag balse anagu ka daali mayno dadaalka waana wadnaa xagga mass mediaha idaacadaha ilaa dhowr idaacadood baa wada arrintaas ayada ah waxaan sameynaa talk show oo idaacadaha ah oo dhakhaatiirtii su-aala la weydiinayo aqoon-yahanadii ay ka baraarujinayaan dadka waxaan sameynay culamaa udiinku inay dadka ka wacyigeliyaan iyaga laftigoodu qur-aan akhrisna waa socdaa ilaa naga qablaan leenahay markaan intaa ka gudbo walaal hadalkaygii hore waxaa ku jiray in yani cudur safmara oo dadka aada u laaya uu wadanka soo maray hadda ka hor qaab looga gudbay baa jiray soomaalidu waxaa la yidhaahdaa soomaaliya ma xeshoode waa cabsadaa baa la yidhaahdaa waxaan ka wadaa waxay noqonaysaa un marka ugu dambaysa ilaahay yani hanaga yasiro siduu hadda uu ilaahay noogu sii yasiro balse haddii xaaladdu ay sii cuslaato in awood la isticmaalay noqon doontaa marka xanuunka si lagu xakameeyo qofka ka baxa degmo ee degmo kale u gudbaya wuxuu wadan jiray warqad dhaqdhaqaaqa oo caafimaadkiisa ku saabsan ilaa degmadaas mar ka soo baxay oo lasoo baaray waxaa la ogaan jiray qofkaasi inuu caafimaad qabo haddii uu xanuunsan yahay ama cudurkii lagu arkana meeshiisaa lagu celin jiray hadduu caafimaad qabana waa la fasaxi jiray ilaa iyo hadda laakiin warqadaasi lama hayo laakiin si xanuunka lagu xakameeyo oo kale maamulka hirshabeelle oo kale waxyaabaha ugu badan ee xanuunka uu ku gudbo waxaa ka mid ah nadaafad daridoo kale oo meelaha qaar loo baahan yahay in maamulkiinu wacyigelin sameeyo ka waran arrintaasi iyadana firkeed maxaad ka qabateen xagga nadaafadda aada baan wax uga qabanay waayo waxaan qaybinay qalabkii nadaafadda hay-ado badan oo nala jooga oo ka shaqeeya nadaafadda biyaha iyo deegaanka ayaa nala jooga iyagii baan aada ula shirnay oo dhowr shir la galnay oo si ay dadkii yani ugu qaybiyaan qalabkii nadaafadda hadday ahaan lahayn colerinta iyo waxyaalaha jeermitirka la yidhaahdo hadday noqon lahaayeen waxyaalihii faradhaqa haddaad jawhar timaado meelo badan oo public aad ku arkaysaa oon la geli karin ilaa la faraxasho oo qofkaasi uu jeermitiro ku falaxasho aan la geli karin waa runtii waxaan dhihi karaa taas waa tilaabo aada u fiican oo uu qaaday hirshabeelle xagga caafimaadka la dagaalanka xakameynta cudurkan waad og tahay oo wadanku waa kala xiran yahay oo waa arrin aada u fiican waaye qolo walba meesheeda in lagu xadido oo aysan ka soo bixin hadday jirayin hadday fayooyo meeshooda ay ku ekaadaan gobolkooda ay ku ekaadaan degmadooda gurigooda ay ku ekaadaan ugu dambeyn marka waad dareemi kartaayo dadka soomaalidu waa dad iska danyar ah oo u badan dadka aadka weliba u liita ayaa ugu badan oo dadkaasi uma saamahayso daruurtu inay guriga joogaan waayo noloshooda ku xirnayd subaxdii inuu aabbaha ama hooyadu uu dhaqaaqo oo suuqyada tago uu dhar soo dhaqo oo nadaafad soo sameeyo uu hilib qalo oo wax un qudaar iibiyo wixii oo dhanna waad dareemi kartaa haddii aanan nadaafadda laga taxadirin inay dhibaata ka imaanayso waxaasoo dhanna aada baan uga wacyigelinay dadka
waaya aad iyo aad ilaa iyo aad iyo aad waan ku haddana wax fahanay problem ma kiisas dheeraada ama waan ma ku fahanay jiraan doctor diyaargarowadana ibraahim waa waan ku fahanay waan kuu soo laabanaya qadkaygugu jir waxaan siinayaa doctor xuseen cabdiqaziis cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka soomaali syrianes doctore maxay tahay xalka ugu dambeeya ee bulshada looga wacyigelin karo xanuunkan islamarkaana lagu ogeysiin karo inuu yahay mid halistiisu ay badan tahay si loo xakameeyo xanuunka waa mahadsan tahay middan hadda aada wadaan inaad laba jibaartaan runtii qeyb libaax ayay ka qaadanaysaa in ay bulshada fariintii ay gaarto midda kale laftirkeeda dad badan oo waxaa jira xanuunada qabo oo runtii aanan ogoleen inay tagaan centerkii ama xaruntii loo diyaariyey walow aan arkayay in xarumaa lasii ballaariyey ama lasii ballaarinayo isbitaal banaadir iyo xarumakan lagu sii dari doono in dadkii horta wax meesha ka jiro waxay aaminsan yihiin dadku xarumaha loo diyaariyey inaysan qalabyo iyo waxba oolin runtii gaabis ka jiro oo qalabkaas ka yaraado oo tabarkeennibaa iska sida ah inkastoo ay ficnaan lahayd in bulshadu taa laga qanciyo lana dareensiiyo in meesha dad ku howlan in ay qofkaas ka badbaadiyaan inay jiraan dad badan waxaad arkaysaa ka dhaqtaraan markaad kula taliso inay xagga tagaan waxay ku leeyihin maya qofka waa la xiraa horaa lagu xiraa qalabna ma yaalo marka si taas looga gudbo in horta transparency ay dhacdo oo xarumahaasi qalabyada yaalo in dadka loo soo bandhigo aad bay u ficnaan lahayd si dadka intay kalsooni intay ugu tagaan isu baaraan dad badan oo qabo xaafadaha jooga ama na ay ugu dhiiradaan inay barnaamijkaas ay iska xaqiijiyaan waaya marka waxyaabaha ugu badan oo ka dhaktar ahaan aada isticmaashaan ama fariimaha ugu badan ee aada dadka u gudbisaan si xanuunka looga fogaado maxay yihiin ilaa iyo haddase maxaad qabateen aad baad mahadsan tahay isbitaalka Soomaali Syria waa isbitaal bareefada runtii kastalada ugu weyn ka mid ah magaalada Muqdisho waxaan sameynaa cid alaale inta badan dadkii soo booqatay waxaan u dirnaa fariimo ah wacyigelin runtii ma hayna nambarada Soomaalida oo dhan laakiin waxaan aad soo u saarnaa dadkii in aan dareensiino in ay culayskaas u jiro sidoo kale intana isbitaalku waxyaabahan CBE-ga ayuu sidoo kale inta qaar ka mid ah dadkii macaamiisha u ahaay uu gaarsiiyey marka intaasoo dhan waxay ka tarjumaysaa isbitaalku waa isbitaal bareefad isbitaal dawli maaha hay-adna ma support karayso waxay ka tarjumaysaa in aan runtii aan diyaar u nahay un inaan muujino culays ka taagan intuu leeyahay si fariinta ay u gaarto macaamiisha iyada laakiin dhakhaatiirta weli waxaa la leeyahay inkastoo ay dadaalayaan oo shaqooyin kala duwan ay bulshada u qabanayaan haddana waxaa jirta fariimihii kala duwanaa ee bulshada la gaarsiin lahaa weli aysan fahansiinin sida dadka qaar markaad la sheekaysatay ay kuu sheegayaan oo kale arrintaasi iyada maxaad uga jawaabaysaan waa mahadsan tahay runtii dhakhaatiirtu waa runtaa waa si gaals oo ugu jira waa la dhihi karaa laakiin ani ma qabo because of institutionkan aan ka tirsanahay ee SMA Somali Medical Association waxa ay soo saareen qodobo 6 ahay oo ka mid ah inay suurtagal tahay inuu cudurka si hoose u sii faafayo xilli cudurka markaasi uu aad u yaray laakiin ilaa iyo hadda waxyaabaha aad nooga sheegi kartid ee ka dhaqan kala maxay yihiin runtii dhakhaatiirtu waxay sameeyaan fariimo ardayda ay wax u dhigaan because of hoolka ugu badan ee aad la kulantaad mar walba xoogga saari kartaa khaasatan aniga wacyigelinta waxaan bilaabay xilli iskuulaadka ay furnaayeen sidii radio Muqdisho hore uga shaaciyey iskuulo badan ayaan booqday oo aan ka wacyigelinayay barnaamijkan COVID-19 mana aan COVID-19 kaliya aniga wacyigelintan aan ku ahay TV ana waraysi siinin waa yariyaan u malaynayaa social media page-ka dadka soo arkaysa marka dhakhaatiirtu dadaal waa ay wadaa hase ahaatee ma jirto isgarabsi gaar ah oo ay ku muujinayaan wixii markii xajmi loo yeelaa maal xaran loo yeelaa ay xajmi zaa'id yeelan karaan midowga dhakhaatiirtana waa wadaa runtii wasaaraddana waa wadaa wixii ma midaysano oo system gaar oo midaynaya ma jirto taasna wasaaradda laga rabaa inay midayso laakiin waxaan kuu sheegi karaa dhakhaatiirtu Soomaaliyeed in ay qof walba uu wacyigelin ku jiro 2 bukaan ama 20 bukaan ee ula kulmaan fariinta uu gaarsiiyo ka Soomaali Syrian ahaana aan gaarsiinay taasoo fariima
aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay waqtiga oo nagu gaaban awgiis waan kugu soo laabanayaa waxaan aadayaa doctor ibraahim cabdiqaadir oo magaalada jowhar jooga doctore markaynu eegno gobolka shabeellada dhexe intiisa badan dadka ku sugan waa dad beeraley iyo xoolo dhaqato ah markii laga reebo dadka magaalada jowhar ku sugan iyo deegaanada iyo degmooyinka kale hoos yimaada ka warran marka intooda badan dad waxaa jira la caawiyo oo kale oo goobaha maamulka ugu talagalay in dadka uu ku caawiyo imaado oo kale dadkaasoo kale waxyaabaha aad siisaan maxay yihiin jimcadow marka hore runtii waa jiraan dad goobo ka qaata waxyaalaha nutriishka loo yaqaano nafaqada hooyada iyo dhallaankaana u badan oo aada u liita markii hore dadku way imaan jireen oo saf intay soo galaan bay dee waxooda qaadan jireen oo la sii jiray wixii loogu talagalay oo nutriishka ahaa ama nafaqada ahaa hadda waxaa dhib naga haystaa dadkii kama dhaadhacsanaa khatarta cudurkaanu leeyahay inkastoo wacyigelinta jirta dadkan haddana yani baahida haysa ayaa uga daran marka aad baan isugu mashquulinay dadkii sida ay wax ku gaari lahaayeen iyadoo la ilaalinayo hadda waad ogtahay waxaan taaganahay personal destination taaganahay xaaladda covid-19 markii la fiiriyo hadda waa dareemi kartaa dad baahan oo ka yimid tuulooyin ka yimid magaalada daafaheeda oo u yimid inay wax helaan xaaladooda waad arki jirtay si crowded ah oo yani dadkii tuuran yihiin oo isku dhow yihiin oo aynan waxba yani kala dhowranaynin oo neeftooda kala ilaalinayn oo ayaa dhacda doctor ibrahim noo soo koob waqtigoo naga gabaabsi dadaalnay inaan dadkii meelo kala gedisan tirooyin kooban oo anagoo ilaalinayna destinashkiina aan wax ku siino taasu aad bay hortii culeys noogu qabatay balse waa ku guulaysanay ugu dambeyn waad mahadsan tahay waxaan aadayaa si uu noogu soo koobo ama hadallada ugu dambeeya oo u dhaho doctor xuseen cabdiqaadir waa doctor xuseen cabdicasiis cabdiqaadir oo agaasimaha isbitaalka guud ee Soomaali Syrianes doctore daqiiqado kooban ayaa inoo dhiman waxyaabaha ugu dambeeya ee bulshada aad ugu baaqayso maxay yihiin barnaamijyada wacyigelinta radio muqdisho inay fursad gaara ay u tahay oo runtii haddii musiga iyo qaraaxa iyo waxyaabo kale inta waqtiga la gelin jiray hadda waqti wacyigelin in la joogo aad baana oola dhacsanaya runtii qaabka aad u wadaan ee wacyigelintiina inay dadka ay aad ay taa u joogteeyaan ku xirnaashahooda waayo updateka meesha laga heli karo ama dad ku ceeldheer barnaamijkan saad u marti qaadaysaan ayaa fursad waa ayaga dadka laftirkooda waxaan leeyahay cudurka waa musiibo caam ah runtii wadamadii awoodda dhaqaale lahay buu ka qiimisiiyey tabar yaro wataasaabano waa naftaada taalukada tiraa soomaalidu runtii ma haysano imkaaniyaad aan isku difaaci karno haddii cudurku uu dhaco marka in aan runtii ka hortaga aan xoogga wada saarno allana tala saarano runtii talada alla meesha kama marno oo yaana la dhihinaya dhakhaatiirtu ma aaminsana alla waxyaaba noocaasi soomaalida u gedisaa dhinaca wacyigelinta marka laga hadlayo diinteena qabto culimadii baa ka hadashay axaadiisii saartay waa tahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada covid-19 intaasaan kusoo gabagabaynaa waxaan u mahad celinayaa doctor ibraahim cabdiqaadir xaaji oo ah iskuduwaha caafimaadka gobolka shabeellada dhexe wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale doctor cabdicasiis cabdiqaadir oo ah agaasimaha guud isbitaalka Soomaali Syrianes oo nagala qayb galay barnaamijka iyo cabdirashiid nuur ibraahim oo ka tirsan warbaahinta qaranka maayda maxuudii dhiblaawe ayaa barnaamijka farsameynaysa anigoo timacada idin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay sidaas iyo nabadgelyo watana weeyo meel bay ka wada timi